qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Baledhiig ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay maamulka gobolka Togdheer oo ay sheegeen inay amar ku bixiyeen in la aas baraago ay ka cabi jireen dadka degan deegaankaasi. qaar ka mid ah dadka ka cabanaya go'aanka ay xukuumaddu ku fulinayso oo warbaahinta la hadlay ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay ka laabato go'aankaasi ay ku aasayso goobahaasi biyo qabatinka oo ahaa isla markaana ay ka cabi jireen iyagoona sheegay inay hanti aad u fara badan ay ka gashay. كده 13 سنة bay qodnay waxaan ku qoday ilaahay oo tacabaan ku qoday agoon baarahay waxaan barkada wixii dhibaato iyo lugoyo iga qabsatay ilaahay baa ogaa aadana ma ogeyn ismaan lahay maanta dawladdu way ka aasaysaa inay wax ku kordhiso wax kula qabato mooyeen inay dawladdu maanta ka istaniyadayda ma gelin kadeedaasi waxay qodnayd muddaamka gaaraysa 8 sano barigii dawladii Siilaanyo ayay hedan taariikhan qotay ayay baraagaha samaysnaa 10 sanadood iyo wax weeye kuwii hore godadka hay lagu yiri soo xalile ayay ilaahay wixii waa aas waxaan leenahay dawladda cid ay qusayso wasiirka deegaanka ka arrimaha gudaha cid ay qusayso arrinka madaxweynaha waxaan leenahay arrinka waa in laga fiirsadaa inay baraagaha yar ay ku warwareegaan maaha waa barkad la yiri waxa la qodayay 7 sanadood baa la qodayay ninka dan yartaa ee maxaan ku raahday arrinkiisu caynka yahay ee 7 sanadood barkad qodayaan gacan ka sareynin waxa uu ku qoday iyo waxa uu la soo mutay qof kasta uu sawir karaya waa garanaya cidda aasaysa ee arrintaas ay ka soo fushayna waxa weeye koow maayirka weeye loo kordhiyo u baahan yahay ummaddu wax hoos u u baahan tahay biyay u baahan tahay dadka waxaad u kordhisaa laga doonayaa waxba hayay magaaladii biyaha u baahanayd ee godadka yar waxa yar ay qotaan u baahanayd biyaha uga baahnayd in la yiraahdo wixii soo kororsimaha baa la idinka aasaya waa nasiib darro de barkada 7 sano qodnayd ee ninka arigiisa awrkiisa uu reenayay galiyay ninka yiri waan aasaya laga aas ilmaha raan u dhibaan war ilmaha reelo arrinka dib uga fiirsado ka xishooda dadka baraaga laga aasaya magaalada degmada Baledhiig dadka ku nool waxa ku dhow yahay ilaa 5,000 ilaa 6,000 oo qoys ku dhow yahay wax biyo ay cabaan waxa jira waxa baraaga foostada biyihii 25 baa u yiri ku wadhaa waxa kooskare gaadiidka keeno dhaqashay meesha laga keeno ugu dhow halka dawladdu ha eegto dadkeeda iyo danta ummadeeda. geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo halkaas isaguna warbaahinta kula hadlay ayaa xukuumadda Soomaaliland ku dhalilay go'aanka ay ku gaadhay inay aasto baraagahaasi waxaan u sheegay in xukuumadda Soomaaliland looga fadhiyay inay dadkani wax u qabato sidoo kale waxa uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani uu madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay in la karaatimeeyo maayirka degmada Burco iyo sidoo kale raxan ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco dadka dayarta ay qoteen ee degmada Baledhiig barkadan iminka aan dul taaganay waxa qoday oo tacab badan galiyay nin macallin ah oo 20 sanadood iskuulka Baledhiig wax ka dhigay oo ardayda Baledhiig wax ka baratay kuwa jaamacadaha ka soo baxay kuwa macallimiinta ka isagu u tumuracay oo raggii soo saaray ee barayaashooda ah inuu samaysto meel biyo oo caruurtiisa uga cabto oo xoolihiisa yar u haysta uga cabaan waxa soo tacab buu galiyay 7 sanadood bay hadda barkadiisa socotaa hatta laana ma dhamaanin halkuu u baahnaa in la caawiyo wax la taro sibirka laga bixiyo gacanta laga bixiyo waxa lagu sameeyay in la yiraahdo tanaabad xaq darro waxaanu soo marnay barkadii maxay ay toy biyeysna barkada Cismaaniya barkada agoonta iyo baraagi biyeysna 13 sanadood baraaga qarqodnay waa nasiib darro weey xukuumaddu waxay u taali kar wadeen riig u qod waxaan xukuumadda Soomaaliland soo jeedinayna madaxweynaha jamhuuriyadda soo jeedinayna oo wasiirada ay ku shaqada loo soo jeedinayna Baledhiig meesha ku ogtiin kaga waran waxaan ugu baaqayaa gudida heer qaran dicid talaabo laga qaadayo waxa u baahan in talaabo laga qaado maayirka jabiyay sharcigii loo dhigay in dadka lagu kala ilaaliyo masaajidadii baa la fasaxay iidii baa la diiday iskuuladii baa la fasaxay malcaamadii baa la fasaxay ummadii dayarta ahayd baa la baqtiyay iyadoo loo turaayo la leeyahay xanuun iska ilaaliya isaguna xaflad 600 oo qof ka soo qayb gashay ayuu arooskiisa ku qabsaday iyo deegaanka laba guun weey waxaan soo jeedinayaa in isaga iyo xildhibaanada la iyo isuduwayaasha la intaba karantiin la geliyo baarisna lagu sameeyo Baledhiigna khalad bay ku yimaadeen dadka reer Baledhiigna wixii ay salaameen ha hubiyaan caafimaad. Cabdiraxmaan Trike telefishinka Horyaal